sameeyeen ciidanka booliisku saldhigga Axmed Dagax gaar ahaan ay ku soo qabteen laba xarimcad lixda maxbuus waxa ay u wadeen ganacsi ahaan in ay geeyaan xeebta dabadna ay sidaa u gudbiyaan waxaan ku gaadhnay balliga khayraadka wa khayraadkeeni cidna male lama iibsan karo lagama ganacsan karo sida uu dhigay xeerka ilaalinta qiimaha ee duurjoogta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. halkan waxaanu kaga warbixinaynaa hawlgal ay sameeyeen ciidanka booliisku saldhigga Axmed Dagax gaar ahaan ay ku soo qabteen laba xarimcad oo yaryar oo ganacsi ahaan loo watay marka waxa laga daba galay aaga masallaha ee raadkooda lagu daba joogay waxa lagu guuleystay in la soo qabto maanta bisha 17 abaara 3 galabnimo waxa laga soo qabtay balliga cas marka wallahi eedeysanayaasha lagu soo qabtay iyo iyagiiba waxaana la horgeyn doonaa sharciga ayaana la horgeyn doonaa waxaana ka sii warbixin doona taliyaha saldhigga Axmed Dagax oo ku guuleystay hawsha. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan madaxda ka soo qayb gashay barnaamijkan aan ku soo qabanay xayawaanka oo uu kamid yahay taliyaha xigeenka qaybta agaasimaha duurjoogta abaanduulaha qaybta galbeedka Hargeysa iyo anigoo taliyaha saldhigga ciidankayga oo waxa weeyaan hareega fadhiya waxa dhacday in muddo 2 casho ah aanu haynay warbixin ku saabsan xayawaankaasi oo ah 2 midho harimcada ayna yaalaan masallaha hawshaasi oo ay galeen ciidanka saldhigga qaybtay qaabilsan xuuraanka ay galeen mar kadib waxa weeyaan waxaanu kiiskii daba soconno waxaana looga raray goobtii waxaanu ka daba galnay halkii la geeyay bahalaha waxaanu ku soo qabanay galabta 3 iyo barkii balliga cas oo ka tirsan qaybta galbeedka balliga cas baan ugu tagnay 3 iyo barkii galabnimo waana 2 midho harimcada waxa kaloonu ku qabanay 6 maxbuus oo siday labadan harimcad 6 maxbuus waxa ay u wadeen ganacsi ahaan in ay geeyaan xeebta dabadna ay sidaa u gudbiyaan waxaan ku gaadhnay balliga cas in lagu siday gaadiidkii lagu siday oo ah gaari indhacada oo aad arki doontaan sawirna ka qaadan doontaan haddaba waxa weeyaan arintaana waxa loo fududeeyay oo aad noola shaqeynayay dadweynaha waxaan leeyahay oo aan u jeedinaynaa xayawaanka inaan cidina kala hayn nin waliba uu leeyahay laakiin taay khayraadkii wadankeena waxa loo baahayay inaynu wada ilaashano oo inaynu wada xanaaneysano oo inaynu wada dhowrno laakiin inaynu lacag ku soo bedelno xayawaankeeni aad bay u mashaakil iyo adag tahay imikana waxaan ku wareejin doonaa waan hadalkana u dhiibi doonaa xayawaankana aan ku wareejin doonaa agaasimaha duurjoogta wasaaradda deegaanka Somaliland anoo ku hadlaya afka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada waxaan u mahad celinayaa ciidanka booliiska jamhuuriyadda Somaliland gaar ahaan ciidanka Axmed Dagax oo runtii dadaal badan sameeyay oo hawlgalka wax ay ku soo guuleystay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada waxay mas'uul ka tahay ilaalinta duurjoogta marka runtii muddooyinka ugu dambeeyay baan oo kaashanayna ciidanka jamhuuriyadda Somaliland meel way ku kala sugeen ciidamada kala duwanba waxa runtii lagu soo badbaadiyay duurjoog fara badan oo siyaabo sharci darro ah waxa way dalka looga saaray tanna waxay ka mid tahay shaqooyinkii qaranka aynu haynay aad iyo aad baan idinku mahad celinaa bulshada Soomaaliland waxaan u sheegaynaa khayraadka wa khayraadkeeni cidna male lama iibsan karo lagama ganacsan karo sida uu dhigay xeerka ilaalinta qiimaha ee duurjoogta xeer number 69/2015 waxaan kaloo waxa way bulshada u sheegaynaa wax waliba waxay qiimo ku leeyihiin halka ay joogaan duurjoogtu waxay qiimo ku leedahay duurkeeda aynu dayno aynu ku ilaalino cid wal oo ficilada kula kacdana waxa way sharciga la tiigsanayo imikana waxaan kala wareegaynaa ciidanka booliiska 2 harimcad waxa way si loo xanaaneeyo waxa way 2 harimcad waxay kamid yihiin waxa way waxaan la yiraahdo marag muujinta marka runtii inta wasaaraddu si ku meel gaara waxay gacanta ugu sii haynaysaa xanaaneyntooda marka dambana maxkamadda ayaa waxa way la horkeeni doona marka aad iyo aad mahadsantiin